In ka badan 1,517,817 oo kiis oo xanuunka koronaha ayaa guud ahaan dunida laga diiwaangeliyay sida laga soo xigtay koobkii ugu dambeeyay ee jaamacadda Johns Hopkins ay sameysay. In ka badan 53,218 qof ayaa u dhimatay 208,000 oo qofna ay ka caafimaadeen fayraska coronavirus ama COVID-19. sida lagu sheegay tirakoobka jaamacadda Johns Hopkins. Mareykanka ayaa hogaaminaya tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka, halka Talyaanigana uu majaraha u hayo tirada ugu badan ee u dhimatay xanuunka coronavirus ama COVID-19. xanuunkan coronavirus ayaa markii ugu horeysay ka soo ifbaxay bartamaha dalkaasi Shiinaha magaaladiisa Wuhan ee gobolka Hubei muddo haatan laga joogo 4 bilood. Inkastoo tirakoobka jaamacadda Johns Hopkins lagu diiwaangeliyay 1,015,817 qof, muddo bil iyo bar ayay qaadatay in la diiwaangeliyo 100,000 oo kiis, waxaana milyankaasi iyo dheeraadkaasi qaba coronavirus la diiwaangeliyay kadib markii toddobaadkii la soo dhaafay ay tirada kiisaska xanuunka safmareenka ah ee coronavirus ay laba jibaarantay. ku dhawaad 5% tiradaasi waxaa laga diiwaangeliyay Mareykanka, halka la diiwaangeliyay 50%.